hay-adda SWC ee badbaadada haweenka iyo caruurta ayaa maanta tababar waxa ay u furtay haween gaaraya ilaa 100 oo ka kala socday xeryaha barakacayaasha ee magaalada Muqdisho. haweenkaas oo tababarkoodu uu la xiriiro talista dharka iyo waliba barashada harqaanka. agaasimaha hay-adda SWC ee badbaadada caruurta iyo haweenka Caasha Xaaji Cilmi oo ka warbixisay tababarkaasi ayaa sheegtay in haweenka tababarkani la siinayo ay yihiin kuwa loo geysto tacadiyada ka dhanka ah haweenka. maanta waxaan halkaan rabnaa inaan ku furno tababar u furmaayo 100 haweena oo ka tirsan haweenka ku ah barakaca xeryaha ku yaala Xamar. haweenkaas oo haweenka tacadiyada kala gudbisan loo geystay ayaga iyo naftooda iyo dib kala gudbisan ay gaareen SWC xarumaheeda xawataanka iyo ilaa iyo hadda waxaan ku haynaa database-keega 3 oo haween Soomaaliyeed oo tacadiye kala gudbisan loo geystay. markaan aragnay dibka marka gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed haysta waxaan sameynay in aan ku ekayn dibka inaan ogaano aan u tilaabsano tilaabada xigta oo ah nolol inaan u abuurno la raadino. sidoo kale Caasha Shaacuur oo ka socotay ururada bulshada rayidka ah kuna hadashay magacooda ayaa xusay in haweenka oo la gacan siiyo isla markaana kor loo qaado xirfadooda iyo aqoontooda ay qayb ka qaadanayso horumarinta bulshada. harqaamadan maanta gabdhahan la barahayo wax badan ayay ugu fadhiyaan runtii wax badan ayay ugu fadhiyaan sababtoo ah gabadhaas harqaanka haday inta barato ay meeshay degan tahay dhigato waxaa la hubaa 3 waqti inay cunto keenin haddaan hadda SWC ka soo gaarin iyo hay'adaha kale oo midka ah gabdhahan noloshoodu waa baabi'i lahayd. gudoomiyaha degmada Hodan Cabdiqaadir Cali Kulane ayaa sidoo kale waxa uu soo dhaweeyay tababarkaasi haweenka barakacayaasha ee ka kala socday degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho isla markaana tababarku uga furmay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho qaasatan xarunta hay-adda. maamadu waxa weeye qofka kaliya mataqaan u danqanayo ilmaha iyo mataqaan mustaqbalkooda wuxuu dhan ka fikirayo waa ugu mahadcelina sida wanaagsan ay u dadaaleen. anaga ka maamul ahaan maamulka degmada Hodan maadaama centerkan uu ku yaalo centerkeena iyo si guudba shaqadeena waxa weeye inaan hay'adaha shaqooyinkii qabanayaan oo kale inaan la soconno la ku kontrolno dadkii soo xulayaan wax dhan. centerkan wuxuu ugu wanaagsan yahay iyo hay'adda SWC in ay u diyaarisay baleys ku wanaagsanay ee qof lagu tababaro hay-adda badbaadada haweenka iyo caruurta ee SWC ayaa hore waxa ay tababar gaaraya ilaa 600 oo haween ah ay u sameysay haweenkaas oo haatan hantay isla markaana kaabay nolosha qoyskooda. Leila Cadismaan TV-ga qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.